subset ama hormo. maxay tahay hormo? waxaa laga yaabaa in uun hadaad xoolo soo raacday ama aad miyiga joogi jirtay inaad si fiican u garanayso waxay tahay hormo. haddii aanad miyi tegin ama aanad xoolo soo raacin lafteeda dhammaan muuqaalkan gudihiisa ayaan ku ogaanaynaa. marka hormo waxay tahay if every element, haddii xubin kasta of b ku jira bida, sorry halkaasaan a idhaahdo, b baan ka dhigay, marka mid waa inaan a ka dhignaa. if every element of a, haddii xubin kasta oo ku jira a is also an element of b, oo sidoo kale yahay xubin sidoo kale u yahay bda, waa xubin kasta oo a-da ku jira ama ay iyadu leedahay sidoo kale waa inuu ku jiraa bda. tusaale, waayahay a-du waxay leedahay xubnaha a-du ka koobantay waxa weeyaan 10, 12, 14 iyo 16, halka b-duna tahay 16, 10 iyo 14. marka teebaa hormo oran, macnihii teebaa hormo noqonaysa, ma a-da hormaa mise b-da hormaa? okay, aynu eegno. halkan waxaa iska cad dhammaan xubnaha b-da ku jira sidoo kale a-da ayay ku jiraan, marka b-du waxay hormo oran u tahay a-da. waxaynu u qoranaa qaabkan, b is a subset, calaamada yar marka aynu sharxad dib ugu noqono, micnihi subset calaamad ahaan waxaa loo qoraa qaabkan, waa calaamada yar oo hoosta laga xariiqay, qaabkaas ayaa loo qoraa. marka b waxay hormo urur tahay a, laakiin sidoo kale waxaa jira waxa la yidhahdo proper subset, hormo quman. waayo wuxuu leeyahay markaa if a, haddii ay a is a subset of b ay tahay, ay hormo urur u tahay b, sidoo kale a aanay lamid ahayn b, yani a lama mid ahaa b, markale a waxay hormo urur u tahay bda. tusaale, marka intaas waxaa laga yaabaa sharxad tahay, balse tusaalaha ayaynu ku fahmi karnaa. marka tusaale aan ka bixino, tusaale wuxuu leeyahay marka a-du waxay la mid tahay 2, 5, 7, halka b-duna la mid tahay 2, 5, 7 iyo 8. haddaba teebaa hormo urur quman u ah ta kale? ma a-da ayaa u ah b-da mise b-da ayaa u ah a-da? ugu horeyn shuruudda waynaan ku qiimeynaa. first waxaa la yidhi a waxay hormo urur u tahay b, hormo urur waxay tahayna tusaalahan ayaan kusoo ogaanay. waayahay, mar kale waxaa la yidhi a-du lama mid aha b-da. okay, first a-du lama mid aha b-da, oo xubnaha dhammaan ku jira a-da waxay ku jiraan b-da, taa micnaheedu waxa weeyaan a-du inay hormo urur u tahay b-da. mar kale a-du lama mid aha b-da oo way ka duwan tahay, waayo inta xubnooda a-da ku jira kuma jiraan b-da, oo b-da ayaa ka xubno badan. marka a sidoo kale calaamadan, micnihii calaamada hormo urur quman lagu asteeyaa waxa weeyaan qaabkaas. marka a-du waxay hormo urur quman u tahay b-da, waa union of sets oo lagu asteeyo calaamadaas. waxaynu odhanaa a waxay union la tahay b hadday shuruudda buuxiso. haddii egas oo markaa ah xubnaha labada qaybood ay ka kooban yihiin ay ka mid tahay a, ama egas ay ka mid tahay b. waayo tusaale, aynu nidhaahna inay noola mid tahay eber, 1, 2, 3, 5 iyo 7, b-na ay noola mid tahay 1, 2, 3, 4, 6 iyo 7. haddaba sidaynu u midaynaa labadan urur waa a iyo b, sidee baynu usoo saarnaa xubnaha a union b? waa inaynu soo qaadanaa xubin kasta oo ku jira a-da ama b-da, inagoo aan xubinna 2 jeer soo celinayn, tirana 2 jeerna soo qaadanayno, mid kasta hal mar aynu soo qaadanaa, eberka aynu soo qaadanaynaa,
eber oo eeda ku jira markale hal baynu soo qaadanayna oo labada dhinacba ku jira markale waxaan soo qaadanaa laba oo iyadu labada dhinacba ku jirta markale saddex waan soo qaadanaa oo iyaduna labada dhinacba ku jirta afar oo bida ku jirta balse aan eeda ku jirin shan oo iyaduna xagga sare ku jirta lix oo bida ku jirta iyo 7 oo labada dhinacba ku jirta marka a union b intaas inoo